kulan wanaagsan saaxiibayaal lamaantii meel baa joogtaan soo dhawaada mar kale iyo barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono xaaladda dalka Kenya doorashadii soo ilaatay iyo waliba dhacdooyinka soo kordhay ee la xiriira arrimaha doorashadii socotay ee la soo gabagabeeyay waliba taariikhaha dhanka madaxweynaha la doortay hadaba warbixinada waxa ku jiri doona maxaa iska galay digniintii Mareykanka uu u jeediyay muwaadiniintiisa ku sugan gudaha dalka Kenya iyo waliba xiisadaha dagaal ee ka soconaya Kisumu oo markaasi ah xarunta weyn ee aad looga taageero ninka xilka lagaga guuleystay ee Raila Amolo Odinga taariikh kooban xagee ku dhashay Ruto Soomaalidase maxay markaasi ka filan karaan mase u wanaagsan yahay dhanka maciishada iyo nolosha iyo waliba dhaqanka guud ee markaasi ay ku leeyihiin walow madaxweynaha la doortay inta badan dadka ay ku eedeeyaan inuu yahay xag jir dhanka diinta ah qodobada kale ee ku jiri doona tabinteena hadduu guul la saamaxana waxaa ka mid ah xisbiga Azimio la Umoja xubno sarsare oo uu ka mid yahay agentiga ama wakiilka guud ee u qaabilsanaa la socoshada qaabka ay wax uga socdeen Bomas of Kenya oo isaguna mar kale sheegay inuu hayo cadeymo la xiriira qaabka systemka loo jabsaday iyo waliba qaabka codadkooda loogu shubtay xilli madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda u ahayd Raila Amolo Odinga Martha Karua ay sheegtay in aysan doorashadu dhamaanin hadaba hadalkaasi maxay kala jeeday qodobada kale ee ku jiri doona hadduu guul la saamaxo tabinteena waxaa ka mid ah la xiriira xaaladda guud ee dalka Kenya amniga xaafadda Soomaalidu ay degto Isli saameyn miyay ku yeelatay doorashada natiijadeeda lagu dhawaaqay xaalkase miyuu ka bedelan yahay wixii dhacay sanadihii 2007 iyo 2017 qodobadaas ayaa hadduu guul la saamaxo ku tabin doona ama markaasi ku faaqidi doona barnaamijkeena mar kale soo dhawaada channelka si share gareeya muuqaalka la wadaaga saaxiibada aan helin xogaha iyo waliba dhacdooyinka aan soo galino halkan adigoo subscribe saaraya haddii aad nala joogtana waan kaaga mahadcelinaynaa dadaalka iyo dhiirigelinta aad mar walba inoo fadisaan mar kale soo dhawaada aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijkeena waxa uu yahay xilli doorashada ay soo gabagabowday ayaa toddobaadyo ka hor waxa ay dawladda Mareykanka waaxda arrimaha dibadda la hadashay muwaadiniinteeda ku sugan gudaha dalka Kenya ee markaasi dalxiiska iyo waliba shaqooyinka kala duwan u yimaaday kuwa oo markaasi ay kaga digtay inaysan tagin goobta ay sida gaarka u cayimtay iyo waliba goobo kale Kisumu ayaana ka mid ah halka ay farta ku fiiqday oo ay sheegeen in muwaadiniinta ay ka soo tagaan haddii ay joogaan halkaasi isla markaana aysan aadin hadaba waxa markaasi soo gabagabowday doorashada natiijadeeda ayaana lagu dhawaaqay waxaana ku guuleystay xilka madaxweynenimo olole aad adagna uu markaasi ka sameeyay waa madaxweyne ku-xigeenka markaasi xilka uu ka sii dhamaanayo ee William Samoei Ruto noqdayna madaxweynaha la doortay oo hogaamin doona hadduu guul la saamaxo 5 sano ee soo socota dalka Kenya hadaba Mareykanka maxaa markaasi ku soo koobay inuu ka hadlo dhanka amniga muwaadiniintana uga digay Kisumu maxay kaga duwan tahay xilligan waxaa Kisumu ka soconaya dadaalo markaasi lagaga soo horjeedo madaxweynaha la doortay ee William Samoei Ruto halka oo taageero loogu muujinayay madaxweynaha musharaxa lagaga guuleystay xilka madaxweynenimo ee Raila Amolo Odinga inta badan waxaa la xasuustaa in halkan ay gundhig u ahayd meelaha fadqalalada iyo waliba dagaalada ay ka dhacaan inta badan doorashooyinkii dalka Kenya ka dhacay xilli sanadkan filashadu ay ahayd mid markaasi ka duwan wixii dhacay sanadidii tagay iyadoona dawladdu aysan geynin tiro aad u badan oo ciidamo iyo waliba gawaarida gaashaaman ee ka hortaga rabshadaha taabadelkeedana loo wareejiyay dhanka iyo Eldoret iyo waliba kabsabed deegaan lagu magacaabo halka oo markaasi iyagu laga filanayay in rabshada ay ka dhacaan taabadelkeeda jawigana uu isu bedelay in kabsabed iyo waliba Eldoret ay noqdaan goobihii ugu horeeyay ee laga soo tabiyay dabaaldegyada lagu soo dhaweynayo madaxweynaha la doortay Kisumu ayaa xilligan waxa la arkayay dadka oo markaasi raxan u saaran gaadiidka askarta kuwa oo markaasi ku tilmaamaya inay kaga soo horjeedaan qaabka loo doortay walow ay markaasi jirto in ay gubayeen taageero iyo waliba goobo markaasi ay iyagu ku soo bandhigayeen shucuubtooda sida ay markaasi kaga soo horjeedaan qodobkaasi waxa inala faaqidi doono stuudiyaha maanta inagula sugan si gaarana markaasi inoola eegaya warbixinada soo dhacaya iyo waliba wararka dalka Kenya Cukaash qodobo kale ayaa inoo yaala uguna muhiimsan tahay inay dadka bartaan madaxweynaha cusub William Samoei Ruto laakiin aan ku hormarno Kisumu iyo waliba
qaabka markaasi ay wax uga socdaan. haddii aan ku hormarno Kisumu waxaa ka socdo dibadbaxyo kuwaasi oo rabshado wata waana wax laga baqayay maadaama dhowr mar oo hore maxaa dalka markii ay ka dhacan doorasho iyagana ay ka dhacday rabshada waa 2007 2013 2017 intaba waxa uu lahaa ninkan hadda maanta Odinga in laga guuleystay ama laga xaday kuraha isla markaasina markasta waxa ka dhacay rabshado aad u xoogan maanta markii lagu dhawaaqay in uu dalka madaxweyne uu ka yahay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya ninka la yiraahdo William Samoei Ruto waxaa ka bilowday rabshado aad u xoogan magaalada la yiraahdo muxuu Kisumu taasi oo keentay in dhammaan rabshadahaasi ay dhibaato xoogan ay soo gaarsiisay isku socodka dadweynaha iyo amniga guud waayo waxa laga cabsi qabay in rabshadahaasi ay dhacaan maadaama dowladda Mareykanka ee horay uga digtay muwaadiniinteeda inay tagaan muxuu Kisumu isla markaasna kuwa ku sugan ay ka soo tagaan maadaama laga cabsi qabay waxaad garan kartaa in Mareykanka laftiisa uu ogaa in mataqaanay ku guuleysan doono muxuu xilka madaxweynimada ninka la yiraahdo William Samoei Ruto maadaama ay si saadaalinayeen haddii uu ku guuleysan ninkana dhici karta marka in dadka ayaga ay sameeyaan rabshado aad u xoogan waana midda maanta ay sameynayaan marka aan ka dhaxgalo Ukash ma waxa is leedahay maadaama la og yahay in markaasi Odinga uu ku guul dareystay isku dayo dhowr ah oo markaasi uu ku noqon lahaa madaxweyne Mareykanka ma waxay sameeyeen qiyaas oo markaasi ay ku saleeyeen siyaasadihii tagay iyo waliba qaabka ay wax ku socdaan in mar walba Kisumu ay noqon karto gunta markaasi ay ka bilaabanayso dibadbaxyada lagaga soo horjeedo madaxweynaha la doortay haddii ninka ay taageerayeen uu markaasi guul dareystay waa ay ka bilaaban kartaa daraadeed miya mise Mareykanka isagu wuxuu markaasi ku leeyahay sirdoon dhanka gudaha Afrika maya inta badan reer galbeedka aad bay mataqaanaa siyaasadda Afrika iyaga jaangooyo lana socdo isla markaasna ninka isla yihiin waad la jaan qaadi kartaan oo waad la shaqeysan kartaan yey mataqaanaa soo magacaawdaan saas daraadeed iyagoo kuuraha la ridayo oo dadka codbixinta ay sameynayaan iyo haddana ninka iyaga u soo baxayo already mataqaanaa way og yihiin waana midda keenayso in mataqaanaa dad badan ay ku andacoonayaan in mataqaanaa laga dhacay kuurihii iyaga waxay ka dhaxayeen siyaasadooda in mataqaanaa ninkan hadda sameeyay amaba madaxweynaha hadda dooran in uu yahay nin dhalinyar ah isla markaasna ay la shaqeysan karaan saas daraadeed marka way sii saadaaliyeen in asaga mataqaanaa ninka asaga ah uu soo bixi doono isla markaasna ninkan odayga ah ee Odinga in laga guuleysan doono isla markaasna ma ahan markii ugu horeysay uu guuleystay dhowr mar oo hore ayaa mataqaanaa laga guuleystay oo sidan oo kale uu sheegay in mataqaanaa guul darro ay soo wajahday waa hagaag waa mahadsan tahay weli waxa bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena gaarka ah ee markaas aan ku egeyno waxyaabaha ka soo kordhay doorashada dalka Kenya iyo waliba xaaladaha laga soo tabinayo Kisumu xilligan xaaladu waxa ay tahay dalka Kenya mid markaasi sida laga filinayay ay markaasi ka roon tahay oo aysan jirin ilaa iyo haatan dhaawacyo mug leh ama markaasi dhimasho laga soo warinayo deegaanada qaar laakiin dibadbaxyo ka kooban ayaa ka dhacaya Kisumu iyo waliba deegaano kale xaaladu ay degan tahay laakiin waxa markaasi suuragal ay tahay in saacad walba iyo waqti walba ay wax isbedeli karaan laakiin nabad ayaan rabbi ka rajeynina dadka qaar Ukash inta badan waxa ku soo celcelinaysay barnaamijyadeena hore ilaa iyo barnaamijka haatan aan ku guda jirno dadka qaar ayaa markaasi Soomaali ah ilaa dadku way kala degaan oo markaasi eray bixinada way kala duwan tahay kuuro maxaa laga wadaa kuuro waxa la yiraahdaa waa kaarka cod bixinta ee dadka ay ku codeynayaan bulshada yaa mataqaan la yiraahdaa kaas qofkii aan haysan ma codeyn karo marka waa kaarkaasi codbixinta ah qof uu ku codeynayo markii uu haysto yuu codbixinta mataqaanaa yuu samayn karaa marka waa codeyntii adiga qofkii codkiisa inuu kaarka codbixinta wey kaarka lagu magacaabo codeynayay ha okay aad u codbixinta wey waa u mahadsan yahay kaasi Ukash ayuu ahaa waan kugu soo noqon doonaa waxaan sii markaasi gaaraynaa hordhacyada barnaamijkeena dhanka kale iyadoo doorashadu ay ahayd markaasi mid natiijadeeda maalinkay bilaabatay ilaa xilligan aan markaasi lagu kala bixin marka laga eego aqbalitaanka natiijada uu markaasi ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya Wafula Chebukati oo isagu markan noqon doona mid ka fariisan doona hogaaminta dhanka doorashooyinka maadaama ay u dhamaatay maantana kaga ekeyd
waqtigii loogu targalay ee markaasi inuu hogaamiyo guddiga doorashooyinka sharcigana uu u siinayay 2 cisho. haddaba doorashada inta aan lagu dhawaaqin maanta iyo weliba habeen hore waxaa markaasi Bomas of Kenya oo ahayd markaasi xarunta lagu tirinayay natiijada madaxweynahana lagaga dhawaaqay ka soo muuqanayay xubno aad miisaan ugu leh xisbiga Azimio la Umoja ee uu hogaamiyo Odinga, kuwa iyagu aad uga soo horjeeday qaabka ay wax u socdaan. laakiin inta aan doorashada lagu dhawaaqin, marka laga yimaado qaabka ay markaasi kaga soo horjeesteen xubnihii IEBC-da ee 4 kuna qabsaday Hotel Serena shir ay kaga soo horjeedaan natiijada uu ku dhawaaqay ninka lagu magacaabo Chebukati, ayaa haddana waxaa soo baxaya xubno miisaan ku leh xisbigaasi uuna ka mid yahay siyaasiyiinta laga xusi karo ninka lagu magacaabo James Orengo iyo weliba wakiilka guud ee markaasi Azimio la Umoja xisbiga lagu magacaabo u joogay Bomas of Kenya Saintibao Ole Kanchori, uu isaguna sheegay in ay caddeemahayaan xilli madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda u noqon lahayd haddii uu guulaysto Raila ay sheegtay in doorashadu aysan dhammaanin. mar kale waxaan dib ugu noqonayaa Cukaash, faaqidaha guud ee markaasi arrimaha doorashooyinka iyo weliba dhacdooyinka dhanka geeska Afrika iyo weliba guud ahaan caalamka. Cukaash, soo dhawow. doorashadii waa ay dhamaatay, William Samoei Ruto wuxuu noqday madaxweynihii shanaad. waxba nagama gelin haddii markaasi ay ka soo horjeesteen, laakiin sharciga ayaa markaasi kala caddayn doona oo maxkamad ayuu leeyahay dalka. laakiin sheegashada xisbiga Azimio la Umoja waana la dhacay ayay leeyihiin, walow dadka qaar ay leeyihiin Odinga maxaa dadka ka dugay oo mar walba isagu loo dhaca. maxaase lagu matali karaa marka laga eego siyaasiyiinta kale ee sidiisa ah, maxaa laga xusi karaa oo dadka ay ka baran karaan? mase dhacday qof Odinga la mid ah oo doorashooyin badan intuu u soo istaagay isagu markaasi laga guulaystay ama markaasi wax laga dhacay? haweeneydan Martha Karwase hadalkeeda maxaa uu noqonayaa? haddii aan ku bilowno horta waa la dhacayda mataqaanaa uu sheego Raila Amolo Odinga waxaa soo baxayo xogo tibaaxaya qaabka mataqaanaa loo dhacay sida ay sheegeen ragga ugu tunka weyn xisbiga Azimio oo mataqaanaa James Orengo uu ka mid yahay, oo ay dhaheen waxaan haynaa cadeymo habkii naloo dhacay iyo wadadii loo maray yaan haynaa, iyagoo weliba ku maraamarsiiyoonayo in guddiga 4 ahaa ee maanta sheegay in ay iyaga mataqaanaa la hagareeyay systemkooda. taasi waa mid ah, laakiin waxaa dhanka kale soo baxay in la soo bandhigay habkii mataqaanaa xisbiga Azimio ay ku guuldareysteen oo ah in ay mataqaanaa dhanka ajantiyaha ama mataqaanaa dadka u qaabilsan wakiilada xarumaha doorashooyinka inay aad uga liiteen, isla markaasna mataqaanaa aysan la soconin meesha ay natiijada ay maraysa iyo dadka mataqaanaa codeynayo qaarkood xitaa feelasha aysan saxiixin. marka taas waxay ku tusinaysaa habacsanaan iyo weliba in aysan aad mataqaanaa doorashadan aad moodo in isdhigteen. mana aha markii ugu horreysay, mar walba mataqaanaa waa sidan way dhacdaa oo xitaa waxaa wareegaya muuqaal la duubay sanadihii tagay doorashooyinkii 17 iyo 7 iyo 13 in ay markaasi dadka reer Kisumu ay ku soo jeedo inay dhaheen war waana la dhaca aqli ma ahee niho wax keen sanadkan kaama yeelin. sax weeye, waayo qofka mataqaanaa hadda dawladda baa la socotay oo wax kasta mataqaanaa waa la socday, shacabka dhan buu mataqaanaa yuu watay, haddana wuxuu ku leeyahay mataqaanaa waa laga dhacay. marka wax suurtagal ah mataqaanaa ma ahan. ninkan wuxuu la mid yahay Faisal Cali Waraabaha Somaliland, waayo markasta doorasho la galo wuxuu la soo tartamay cigaal, wuxuu la soo tartamay Muuse Biixi hadda xilka hayo, waxa kaga horreeyay mataqaanaa ninka la dhihi jiray Silaayo dhammaan waa la dhacay mataqaanaa taagnaa. Martha Karua hadalkeeda aan u imaano, Martha Karua waxay caddaysay in doorashada aysan dhammaan ayna dhammaan doonin yaa loo kala baxayo. maxay ka wadaa marka hadalkaasi? sidee loo qaadan karaa? waxay ka wadaa in systemka loo adeegsaday inuu yahay inay codka iyaga ay heleen, madaxtinimadana Ruto u helay. saas daraadeed inay maxkamadda ay kaga awood roonaan doonaan oo cadeymo badan ay hayaan iyo mataqaanaa iyada soo bandhigaysa hadalkeeda yaa loo qaadan karaa. marka waa goodis ah in madaxtinimada iyaga ay leeyihiin, isla markaasna mataqaanaa laga hiiliyey, laakiin hagaadhe maalin ay dib ugu soo noqon doonto inay iyaga madaxtinimada inay qabtaan. waa hagaag. bal markan qodobkaasi ayaan dib kuugu soo noqonaya. waxaa sheegtay in wakiilada oo markaasi dadka u qaabilsan in xarumaha doorashooyinka, maadaama doorashadu ay ka socotay ilaa iyo 100 xarumood oo markaasi codadka laga kala dhiibanay, qof walba oo markaasi musharaxana wakiil ayuu keensanaya. haddii wakiiladii aysan feelashii saxiixin form 34 iyo 30A aynan la soconin habka ay doorashada u socotay ama markaasi xarumahaasi, marka miyaa lagu eedeyn karaa Wafula Chebukati iyo xisbi aan iraahday guddigiisa iyo weliba madaxweynaha guuleystay maadaama habacsanaan xaggooda ay ka timid ay tahay?
maya laguma eedeyn karo si guud waxaa loogu eedeynayaa Azimio la Umoja maadaama iyaga mataqaanay ay iska dhisi waayeen wakiiladooda waayo doorasho in muddo ah lasoo qorsheynayay oo waqti la soo geliyay campaign dhan mataqaanay u soo galeen oo la doorasho oo kharashaad badan mataqaanay kaga baxay in markii ugu dambeysay ee gabagabada ah in wakiiladooda mataqaanay ay la socon waayeen doorashada meesha ay marayso wax aad looga xumaday mataqaanay ay noqotay laakiin waxaan mataqaanay waxay noqonaysaa cashir laga baran doono kuwa ka dambeeya Raila ay ka baran doonaan mataqaanay noqonaysaa maadaama isaga ay qabsatay kuwa ka dambe inay qabsan dooneen mataqaanay ay waqti waa hagaag ee aad ayuu mahadsan yahay kaasina Cukaash ayuu ahaa oo markaasi warbixinada iyo qodobada aan soo qaadanay si gaar ah aan isula falanqeynaynay marka ay timaado xaaladaha ugu dambeeya dalka Kenya iyo waliba doorashadii markaasi soo ilaatay walow muran uu jiro xilli guddiga doorashooyinka IEBC xubno ka tirsanna ay markaasi kala jabeen oo ay markaasi shir ku qabsadeen mid ka mid ah hoteelada ku yaala dalka Kenya oo ay ku sheegeen inaysan raalli ka ahayn aysan ku qanacsanayn Chebukati warka uu ka sheegay xarunta Bomas of Kenya waxay noo soo socotaa arrin la xiriirta xaaladda guud ee xaafadda Soomaalidu degan tahay Islii iyo waliba qaabka ay wax uga socdaan xilli dalkan inta badan dadku ay u dhagtaagayaan in ay rabshado ka dhacaan xaaladdaasi waa ay degan tahay Cukaash waan kugu soo noqonayaa markan waxaa la doortay William Samoei Ruto oo markaasi dadka ay aad u yaqaanaan laguna xasuusto kaalintii uu ku lahaa markii Uhuru Kenyatta lagu qabsaday xilka haatan uu ka idlaanayo madaxweynenimada uu ku guuleystay maxkamadda Hague la geeyay talaabadii uu ku bixiyay iyo waliba hadaladii ugu dambeeyay xilliga ololaha doorashada ee dalka Kenya uu markaasi ku sheegay in markaas aan iraahday waxa maxkamadda la geeyay Moi Kibaki oo markaasi isagu uu markaasi kaga guuleystay laakiin muran badan uu ka dhacay waxaa lagu xasuustaa William Samoei Ruto ololaha doorashadiisa waxa uu fagaare cad ka sheegay in uu ugu baaqay Uhuru Kenyatta inuu arrimahan ka dhaxbaxo isla markaana ninka ay hayaan uu markaasi ka adkaan doono dhinaca kalena uu sheegay in xilligii uu ugu baahnaa taageero uu fidiyay haddii uu taageeraynina uu isaga haro bal ninka noocaasa ee ka hadlay arrimahaas oo dhan ee uu markaasi gogol dhigtay ninka lagu magacaabo Uhuru Kenyatta oo isagu taageeray Raila Odinga muxuu yahay xagee ku dhashay da'diisa se maxaa lagu qiyaasaa muxuuse ku takhasusay ileen madaxda qaar baa ah dhaqaatiir qaar baa markaasi dhanka caafimaadka bal Ruto waa qof ceenkee ah horta dib aan u yar noqon doonaa waxaan tegaynaa xilligii maxkamadda ICJ mataqaanay la geeyay 2007 xilligii mataqaanay Moi Kibaki doorashadiisii oo ay tartamayeen ninka la yiraahdo Odinga yaa rabshado xoogan meeshaas mataqaanay ka dhaceen isla markaasina xilligaasi waxa uu kamid ahaa ninka la yiraahdo William Samoei Ruto dhalinyarada ugu firfircooneed ee xilligaasi Odinga la socotay mataqaanay uu kamid ahaa iyagoo adeegsanaya xisbiga ODM rabshadii halka ka dhacay oo dhanka kalena uu la socday madaxweynaha hadda dalka talada haya ee xilka ka dagay ninka la yiraahdo Uhuru isagana wuxuu la socday Moi Kibaki rabshadii halkaasi ka dhacay marka waxa lagu kala eedeeyay Ruto in mataqaanay uu dhameeyay ama uu leynayay ama uu mataqaanay ka dambeeyay shacabkii Kukuyada inuu leynayay halka lagu eedeeyay asna mataqaanay madaxweynaha hadda talada ka sii dagaya in isagan uu ka dambeeyay in dadka Kalenjinka in mataqaanay uu leynayay taasi maxkamadda mataqaanay loo geeyay isla markaasna markii dambe soo dhamaatay haddaba William Samoei Ruto waxa uu dhashay 1966 waxaana uu ku dhashay deegaanka Sugoi ee ka tirsan gobolka Rift Valley ee dalka Kenya Ruto waxa uu ku soo koray nolol aad u adag xataa iskuulka waxa uu aadi jiray isaga oo aan kaba xataa aan qabin oo lugihiisa ay cad yihiin isla markaasina da'da 15 markii uu soo gaaray yaa ugu horreysay baa la yiri kaba mataqaanay uu xirto sidoo kale Ruto waxa uu deegaanka miiga ee ka tirsan gobolka Rift Valley uu ku ibin jiray looska iyo digaaga waxa uuna ku soo koray nolol aad u hooseyso ayuu mataqaanay ku soo koray Ruto wuxuu halqabsi uu ka dhigtay nin xoogsata ah kaasi oo mataqaanay arkinay iyadoo gaari gacan mataqaanay lagu wado waxaana uu sheegay in halganka uu ka soo bilaabay meel aad u hooseyso oo ah isaga oo kabalaan ah in haddana mataqaanay uu noqonayo madaxweynaha dalka Kenya waa markii uu horay uga sheekeynay sidoo kale waxa uu sheegay dalka inuu ku xoreynayo waxa loo yaqaano awoodda sare oo uu la jeedo Raila Odinga iyo Raila Kenyatta oo iyaga dalka inay xukumaan mar walba doonayo inuu ka xoreeyo inuu doonayo oo xukunka inay sii haystaan isla markaasna xisaabtan uu sameyn doono
وهجاك haddaba ruto أدو waxa uu siyaasadda kusoo biiray sanadkii 1992 waxaana uu sheegay in macalinkiisa siyaasadda inuu ahaa madaxweyne hore dalka Kenya ninka la yiraahdo Daniel Arap Moi oo asaga mataqaana isku jifa ay yihiin in uu mataqaana macalinka siyaasadda inuu ahaa ruto waxa uu kamid ahaa xubin firfircoon oo kamid ahaa dhalinyaradii xisbiga KANU Moi uu hogaaminayay sidoo kale waxa uu kamid ahaa dhalinyaradii loo xil saaray xilligii loo ololeynayay axzaabta badan dalka Kenya 1992 sidoo kale ruto waa nin afdahan ah oo dadka mataqaana inta badan qulubtooda soo jiito afdahan ah oo mataqaana nin codkar ah isla markaasna nin mataqaana dadka aad u jecel in uu qanciyo yaa mataqaana uu ku xeel dheer yahay sidoo kale 1999 ayuu qaatay shahaadadiisa koowaad culumta sayniska waxaan uu ka qaatay jaamacadda Nairobi sidoo kale shahaadada labaad iyadana mataqaana PhD wuxuu ka qaatay isla jaamacadaas iyadana Nairobi sanadkii 1997 waxaa loo doortay xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee Kenya isagoo loo soo doortay waqooyiga Eldoret kaasi oo ku metelay qoomiyadda halkaasi ku dhaqan waxaana weeye nin muxuuna soo noqday xilligii mataqaana Kibaki dowlad wadaagii wasiirka waxbarashada iyo waliba tacliinta sare ayuu soo noqday haddii aan fiirno kaalintiisa aan fiirno Soomaalida xaggeeda 2016 waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka way 10 sano ayuu mataqaana xilkaas uu hayay waxa uu sheegay in qaxootiga Soomaalida ku nool Northeastern in laga raro isagoo mataqaana ka dalbaday UNHCR oo yiri qaxootigan ma hayn karno hana laga qaado sidoo kale waxyaal dilal badan oo qorsheysanna aad ba mataqaana ayaa lagu haystay oo la dhihi jiray isaga mataqaana ka dambeeyo inkastoo isaga mataqaana uu iska diiday marka taasi waa taariikhda guud ee William Samoei Ruto laakiin waxaa sheegtay in qaxootiga hal la raro u dheh inagoo og in Soomaalidu ay ka imaaday markaasi dal dhibaataysan isla markaana ilaa iyo haatan xal loo helin waxaa taageeraya aadan barre ducaale oo markaasi xubin muhiim ka ah Soomaalida siyaasiyiinta ay ku leeyihiin dalkan Kenya maxay tahay aadan barre dunta ugu xiran Ruto ee u taageeray xilli aad sheegtay inuu dilal iyo waliba arrimo aan u wanaagsan Soomaalidu ku sameeyay kulana kacay siyaasadda sidoo mataqaana waxay leedahay dan joogto ah bay leedahay laakiin saaxiib joogto ah mataqaana ma lahan aadan barre ducaale wuxuu ka dhax arkay siyaasadiisa in ninkan uu la xamaalan karo isla markaasna waqti ay wada qaadan karaan waxaa kaloo mataqaana jira isbedel dhici karta ninkan inuu ku sameeyo siyaasadiisa xilligaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeen laakiin maanta isaga ayaa madaxweyne ah saas daraadeed wuxuu doonayaa wadanka 10 sano oo dambe 10 sano oo tan ka bilaabanayso in uu xukumo dalka saas daraadeed waa in dadka uu soo jiito inuu iska fogeeyo mataqaana ma ahan Soomaalidana dadka waxay ka mid noqonayaan sanadka dambe asaga uu codeyn doono haddii mataqaana uu kula dhaqmo waji fiican laakiin haddii waji ka samaysan waayo waxaa dhici karta in axzaabta kale ay soo bixi doonto loo soo sharixi doono xisbiyada soo bixi doono in mataqaana ay garab ay u noqon doonaan waa hagaag ayuu mahadsan yahay qaybihii ugu dambeeyay ayaan isla soo gaarnay saaxiibada hadda nagu soo biiray waxaan ogeysiinaynaa in qodobada barnaamijkeena uu quseeyo Mareykanka oo isagu ka hadlay toddobaad ka hor in aysan muwaadiniintiisa tagin deegaano ay ka mid yihiin Kisumu sababo la xiriira dhanka amniga xilli doorashada Kenya ay soo gabagabowday rabshado qaar ayaana laga sheegayaa in halkaas ay ka socdaan haddaba maxaa iska galay ayaan ku falanqeynaynay markaasi digniinta Mareykanka iyo waliba rabshadaha ka curtay halkaasi iyo waliba taariikh kooban oo markaasi aan ku eegaynay madaxweynaha la doortay William Samoei Ruto iyo waliba qaabka Soomaalida uu la dhaqmi karo xilli la xasuusto in markaasi dhibaatooyin laga warinayo in uu markaasi sameeyay xilligii uu la shaqeynayay Uhuru Kenyatta oo xilka ka sii degaya xisbiga Azimio la Umoja xubno ka tirsan ayaa markaasi sheegay inay hayaan cadeymo la xiriira qaabka systemka loo jabsaday iyo waliba codadka laga shubtay xilli madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda u noqon lahayd Raila Odinga hadduu guuleysto waa Martha Karua ay sheegtay in doorashadu ay dhammaan ayna markaasi sii socon doonto hadalladaasi ayaan ku faaqidnay iyo waliba markaasi xaaladda guud oo isli oo markan xilligan ay tahay mid markaasi degan Soomaalida ayaa waxa markan ay tahay kuwa ku sugan xaafadahooda iyo waliba goobaha u gaarka ay markaasi ku kulmaan amniga guud waa wanaagsan yahay waxaana markaasi ay tahay jawiga guud ee dalka Kenya mid markaasi degan oo deegaanada qaar laga dabaaldegayo halka deegaano aan badnayna ay ka socdaan rabshado haddaba wixii ku soo kordha barnaamijkeena dambe ayaad ku daawan doontaan cidda uu seegase barnaamijkan dib ayay uga daalacan karaan barteena tan iyo kulanti dambe nabadgelyo